markii ay tartanka ugu jirtay kursigan waxa ay taageero ka soo heshay dhammaan dalalka Afrika waxayna ballan qaaday ururka midowga Afrika inay danihiisa difaacayso waxay sidoo kale ballan qaaday in ururka jaamacadda carabta in danihiisa ay difaacayso waxay sidoo kale ballan qaaday urur weynaha islaamka in ay danaha ay wadaagaan ay difaacayso iyadoo waxaasoo dhan ballanqaadyadaasoo dhan la eegayo kursigan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee wareega Soomaaliya waxa weeye oo markii labaad ay soo fariisanayso muddo 50 sanadood ah sanadkii 1971 ayaa Soomaaliya ugu dambeysay kursigan hadda ayay ku soo noqotay January 1 ayay kursigan soo fariisatay hadalka uu jeediyay wakiilka wafdiga Soomaaliya ama safiirka Soomaaliya u fadhiya Abuukar Usmaan Baale waxa uu isticmaalay dhammaan xeerarkii caalamiga ahaa arrimaha bini'aadanimada iyo arrimaha dagaalka iyo sidoo kale wuxuu isticmaalay qaraaradii la xiriiray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee laga soo saaray colaadan u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil hadalkiisana waxa uu muuqday hadal miisaan leh culus gudbinaya ra'yiga dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaasna qayb ka ah ballanqaadyadii uu hore ugu soo qaaday dhinacyadaas kale waxaana muuqatay luqadda uu ku jeediyey iyo sida uu hadlay inay ahayd si khibrad iyo waayo-aragnimo ku jirto inkasta oo ay kursigan Soomaaliya ugu horeyso baalana ay tahay markii ugu horeysay uu soo fariisto golaha ammaanka ee qaramada midoobay aad iyo aad dabcan waa markii labaad ee Soomaaliya taariikh ahaan ay soo fariisatay Soomaha Maxmed waa markii labaad laakiin baalle ka shakhsi ahaan xilliga Soomaaliya kursigaas ku fadhiday arday buu ahaa haddana waxa uu noqday ergigii nasiibka u helay inuu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku matalo Soomaaliya sida uu hadlay waxaa ka muuqatay khibrad waayo-aragnimo erayada uu xushay iyo sida uu hadlayna xigasho fara badan oo qaanuuni ah ayay lahayd waxaa kaloo intaas dheer warbixinadii ay bixiyeen khabiirada ka socday ururka caafimaadka adduunka iyo gabadha xuquuqda aadanaha u ololeysa fadhigeedu yahay ka shaqeysa arrimaha Falastiiniyiinta iyo sidoo kale gabadha kale ayadana arrimaha bini'aadanimada u ololeysa hadalladii ay jeediyeen si wanaagsan ayuu ugu mahadceliyey wuxuuna si wanaagsan u soo dhaweeyey sidoo kale ergeyga waddanka Algeria oo sanadkan bishan madaxweyne ka ah way ogtahay madaxtinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa wareegtaa bil walba qof ayaa ah waxaana marka la isku soo xooriyo marka la barbar dhigo ergooyinka kale ee khibradda leh luqadda miisaanka iyo sida uu hadlay waxay ahayd uma muuqan Soomaaliya inay naadigaan ama golahan ku cusub tahay sida uu u cabiray ra'yigiisa dad badan baa waxay islahaayeen bacdama Soomaaliya dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga wadamada reer galbeedka ay ka taageeraan in kursigan laga yaabo in wadamadaasi ay ku riixaan Soomaaliya danaha ay leeyihiin laakiin sida muuqata dhowr qodob oo muhiim oo qawaaniin caalami iyo dul istaagay dowlad Falastiin madaxa bannaan in la helo Israa'iil inay soo gabagabayso haysashada dhulka Falastiiniyiinta bariga Qudus inay caasimadii noqoto arrimaha dagaalka inay si degdeg ku joojiso marka maqaam ay ka hadlayeen Ruushka iyo Shiinaha iyo quudaha waaweyn oo kale ayaa Soomaaliya ka muuqatay inay istaagtay maxay taasi uga macno tahay dowladda muslimka waad xustay Algeria oo kale inay imika gudoomiyaha ay hayso bishii Soomaaliya laftigeeda way qaban doontaa way ku imaan doontaa labadaas marka dowladda muslimka sida gaarka u danaynaysay hadalka ay Soomaaliya halkaas ka jeediso oo kale iyo dowladda saddexaad maxay uga macno tahay Maxamed Abuukar Baale markii uu fasax ku yimid Soomaaliya dhowr bilood ka hor ayaan la kulmay waxyaabaha aan ka wada hadalnayna waxaa ka mid ahaa sida golaha ammaanka ee qaramada midoobay markay Soomaaliya tagto ay u shaqeyn doonto iyo sida ay danaha Soomaaliya iyo wadamada saaxiibka ay yihiin ay u wada shaqeynayaan iyo sida loo wada tashanayo
موقفية قاركودنا ويهي مد سجلين أو تاريخي waxyaabo fara badan oo la xaleynayo oo waxa jira qofkii kursiga ku fadhiya markaas mathalaya ay tahay in uu gudbiyo ayadoo waxaas dhan la xiriirinayo ayaa ayadana meesha waxay ka maqneen in Soomaaliya codkeeda ayadana ka muuqdo qofka ku fadhiya kursigan waxa weeye wadan walba waa wareega wadan ku fadhiya waxa uu labadaas sano ahaanaya afka sida loogu doodo waxyaabaha xuquuqda aasaasiga Afrika ha noqoto wadamada Carabta ha noqoto maxaan ku raadaa wadamada dhexdhexaadka Soomaaliya ururo badan ay ku jirtaa waxa muuqata Soomaaliya codkeeda inuu soo noqday ra'yigan dadka qaar ay qabaan Soomaaliya wadamada reer galbeed ayaa taageera dowladnimadeeda 20 sano ugu dambeysay daba taagnaa oo taageeray موقفك الرجالات كهربان صومالي بحيو تاجرز صوماليا دولة ويا دولتنا أيضا صاحبة عشان يصحي دنا بقى دني هذا يو دولة نمدي هذا مركلا فيريو يصاحب تنمد ولا كلا جابي تنتن حد صوماليا كهذا شيء قضية وهو عالم بنتي سبرنا يا أبدا ودمنا الرجالات ك سيد أي أتاجريا إسرائيل وكلا أي فلسطين وح أتاجريا بقول إيه أفرتني لبضل أو أدرك وين ولا أمان كجرة أي قيب كيجي مركا في اليوم ما قام كيسيد وحر لي وحاكم لغتي إن ومثلي رأيك أمد الصومالية أو فلسطينيين وقرابية تاجرية عربتا أو صومالية وقرابية سو تاجريسة أدون كإسلام وعربتا وقرابية سو تاجريسة أفريقيا أنتو هذا بدن أو أفريقيا تاجريسة قضية marka mas'uuliyadii Soomaaliya iyo ballankii ay qaaday way ku taagan tahay mid la fiirinayo reer galbeedka eedaha laga tirsanayana taasi saaxiibtinimada iyo eedaha la tirsanayo waa laba arrimood kala duwan Soomaaliya dalkii saaxiib la ah oo dal weyn ah ama Mareykan ha noqdo ama Ingiriis ha noqdo iyo mowqifka siyaasadeed ee Soomaalida waa kala dhexsan صح weli waxa xasuusan markii uu soo dhaway Abu Karbaale geesaha ka fadhiyo kuraas isku xigeen UK iyo Slovenia sida u fiirinayaan dad badan baa baraha bulshada arrintaas uga hadlaya maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii falaqaynta wararka daawada adiga ra'yigaaga nala wadaag si aad u aragta arrintan iyo hadalka uu jeediyey safiirka Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladda soo ay tahay waa inoo barnaamijka haya insha Allah si aad noola